calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan warbixinada xiisaha badan ee kaga diyaarino aflaamta Bollywoodka iyo markaas Hollywoodka laga leeyahay. Asxaabta maanta barnaamij xiiso badan haddii intaan barnaamij ku gudagudan waana ku asxaabta markaas sida joogtada nala joogto ku mahadsantihiin. Waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inaad like gareysaan sidoo kalena sii share gareysaan si uu muuqaalku u gaaro saaxiibo badan. Barnaamijkeena intaan u gudagalin waxaan soo qaadanaynaa filimada markaas OTT lagu soo fasaxayo oo markaas aan sugayno. Filimadaas waxaa ugu horeeya filimka lagu magacaabo Anti Sundranika oo hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Natural Star Nani. Filimkan wuxuu soo baxay bishii 6 tobankeedii. Sidoo kale filimkan ganacsi ahaan wuxuu noqday filim falooba oo burburay isagoo markaas ganacsigiisa soo xareeyay ku dhawaad 32 kor aan ilaahay 20 kor ayay ganacsigiisa soo xareeyay isagoo markaa laga rabay inuu soo xareeyo ganacsigiisa guud dibadda 32 kor si uu filimkaas u noqdo filim hit ama guuleystay. Sidoo kale filimkan xiisaha badan sidoo kale haddii aan barnaamijkeena hore usii gadalo intaas waxaa noogu ekaa aflaamta markaas OTT lagu soo fasaxayo. Filimkan ugu horeeya soo qaadanayna waxa lagu magacaaba AK Villain Returns waxaana hogaamiyaalka actress lagu kala magacaabo John Abraham. Sidoo kale waxa ku weelay ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor. Sidoo kale doorarka atirashooyinka waxaa kala qaatay Tara Sutaria iyo kooxda lagu magacaabo Disha Patani oo fanka dib u soo laabatay sanadii waxaa ugu dambeysay filimkii Malang ay sameysay sanadkii 2020 kaasoo xidigta lagu amaanay door fiicanna filimkaas ka qaadatay. Sidoo kale ninka lagu magacaabo John Abraham oo filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii Attack. Sidoo kale ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor filimadiisa ugu dambeeyay waxaa lagu soo fasaxay ninkaas OTT-ga si xasano filimkii Sardar oo sanadii 2021 actorkan jiniinkiisa kusoo bandhigay maadaama filimkaas uu ahaa filim xiiso badan oo markaas dareen qiiro badan markaas arrimaha filmiyaraha markaas ku saabsanaa. Filmo badan oo ay ka dambeeyay xidigan uu la imaaday oo markaas inta badan tiyaatarada looma saarin xidigan OTT-ga ayaa si toos ah loogu soo fasaxayay. Sidoo kale gabadha lagu magacaabo Tara Sutaria filimkeeda ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii Hero Bunty 2. Sidoo kale waxay saacadda aflaanta kusoo biirtay sanadii 2019 iyo filimkeeda ugu horeeyay kaasoo ahaa Student of the Year 2 oo la sameysay ninka lagu magacaabo Tiger Shroff. Haddana filim labaad ay ku midoobeen. Filimkan xiisaha badan ee Villain Returns waa filimkii hore loo sameeyay 2014 la daawaday ay ku xarakeeyeen Siddharth Malhotra iyo ninka lagu magacaabo Ritesh Deshmukh iyo gabadha lagu magacaabo Shraddha Kapoor. Haddana filimkan waxaa laga sameeyay qayb labaad iyagoo markaas la iskugu keenay 4 jilaa John Abraham iyo Arjun Kapoor iyo Tara Sutaria iyo gabadha lagu magacaabo Disha Patani. Filimkan xiisaha badan oo markaas la daawan doono 29 July ayaa filimka tiyaatarada loo saari doonaa. Filimkan ay tiyaatarada loo saari doonaa waana qaybtii labaad ee Villain soo baxay sanadii 2014 kaasoo noqday blockbuster weyn. Sidoo kale filimkan xiisaha badan dhowr jeer kala duwan ayuu baaqday markaas waxaa la daawan lahaa sanadkii lasoo dhaafay 2021. Sidoo kale shaaca filimkan waxaa laga qaaday 2020 ayaa shaaca laga qaaday in markaas la sameyn doono. Sidoo kale qorshuhu waxa in markaas hogaamiye noqon doona Aditya Roy Kapoor iyo ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor balse Aditya Roy Kapoor filimkan iska dhaafay maadaama uu ku mashquulsanaa filimkiisii The Battle Within
markaas waxaa loo dhiibay ninka lagu magacaabo John Abraham oo filimkan kaalin weyn ka qaatay. Sidoo kale filimkan hadalaynta weyn dhaliyay waxaa ka mid ah hadalaynta weyn uu dhaliyay filimka waxaa ka mid ah loo daawan doono Yaas Atura oo markaas inta badan dadka shacabka markaas filimkan trailerkiisa ama xayeysiintiisa daawaday waxay ku wareereen qofka markaas hogaaminta qaadan doona iyo qofka markaas doorka laarinimada oo markaas ku qaadan doona. Sidoo kale filimkan waa filim iskugu jira jahwareer iyo markaas drama iyo markaas romance markaas iskugu jira, waana filim xiiso badan oo kusoo laabanaya ninka lagu magacaabo John Abraham maadaama uu ka fashilmay filimkiisii Attack. Sidoo kale ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor tiyaatarada ayuu kusoo laabanaya. Sidoo kale ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor ayaa markaa diiradda weyn la saaraya oo markaas filimkan wuxuu kusoo muujiyay doorka markaas actionka maadaama xiddigan lagu bartay doorarka jilicsan ama dahabacsanaanta ka muuqato oo markaas looga baran doorka action iyo waxaas la mid ah inuu sameeyo. Sidoo kale filimkan haddii markaas ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor kusoo bandhigo action tadiis wanaagsan tahay maadaama aragnay trailerka markaas isku fara saaraya ninka lagu magacaabo John Abraham oo looga haray actionka. Sidoo kale Arjun Kapoor kama yareysan maadaama ninka uu jirkiisa dhisay oo markaas qaab jiliin cajaa'ib badan filimkan film Returns uu kusoo bandhigi doono ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor ay yiraahdeen. Sidoo kale filimkan xiisaha badan sidaan kuugu sheegnay 29 July ayaa filimka tiyaatarada la saari doonaa. Filimka sanadkan July ama bishan July filimada Bollywood oo markaas la saari doono waxaa ka mid ah filimada lagu kala magacaabo Shamshera oo 22 July la saari doono. Sidoo kale Hit the First Case oo markaas Rajkumar Raw hogaamiye ka yahay tiyaatarada la saari doono 15 July. Sidoo kale filimka lagu magacaabo haddana ka hadlan Eggplant 29 July ayaa la daawan doonaa. Asxaabta filimkaas intaas ayaa ka cusub wixii kasoo kordhana waa ka socodsiin doonaa. Sidoo kale filimkan waxaa ammaan ballaaran loo soo jeediyay waxay filimkan kusoo bandhigeen heestii Kalyan oo markaas Eggplant blockbuster ka weyn noqotay. Sidoo kale YouTube-kana markaas views badan aad badan ka heshay. Heestaasna dib ayaa markaas loogu soo celiyay filimka lagu magacaabo Eggplant Returns taasoo filimka xiiso badan u soo yeelaysa. Asxaabta filimkaas intaas ayaa kusoo gabagabeynayna wixii kasoo kordhana waa la soo
gaaraan muuqaalo xiiso badan oo markaas aad ka heli doontaan. Fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay like noo saar, waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka.